Bismillahirrahmanirrahim waxaan oo wanaagsan dhageystayaal saaxiibayaal meel kastoo aad joogtaan ku soo dhawaada barnaamijka falanqaynta caalamka oo xiliyadan oo kale aad ka daawataan warbaahinta Naafici Show. Taliyaha guud ee ciidanka Pakistan General Azim Munir ayaa fariin gaarsiiyay Trump waxa uuna u sheegay inta Mareykanka uu cunaqabataynta ku hayo dekedaha Iran inaysan jiri doonin wadahadal dhici karo oo ay tallaabooyinkan caqabad ku yihiin wadahadallada in dib loo bilaabo kadib Trump fariinta markii ay gaartay waxa uu sheegay in la tixgelin doono soo jeedinta Pakistan sida ay waxyar ka hor warisay wakaaladda wararka ee Reuters. Dhinaca kale warar soo baxaya ayaa waxa ay sheegayaan inay Iran ku celisay inaysan wax niyad ah u haynin wadahadallo kale oo ay Mareykanka la gasho xilli xabajoojintu dhamaanayso suurtagalnimada dagaalka dib u qarxana ay badan tahay sida ay baahisay Al Jazeera. Warar soo baxaya ayaa waxa ay sheegayaan Pakistan oo sare u qaaday xiriirada ay la sameynayso Mareykanka iyo Iran si dib looga bilaabo wadaxaajoodka labada dhinac oo looga hortago dagaal weyn oo ka qarxa bariga dhexe sida ay warisay wakaaladda wararka ee AP. Iran ayaa ku celisay inay ka jawaabi doonto weerarka Mareykanka uu ku qabsaday markabka ganacsi oo ay Iran leedahay iyadoo weerarka ay ku tilmaamtay in uu yahay xadgudub ka dhan ah xabad joojinta iyo burcadbadeednimo sida lagu sheegay war-saxaafadeed ay baahisay Al Jazeera kaas oo ka soo baxay xarunta dhexe ee howlgallada militariga Iran ee Khatam al-Anbiya. Dhinaca kale war ka soo baxay telefishinka Israa'iil ee Netanyahu uu maalgeliyo ee Channel 14 ayaa ku warramay inay suurtagal tahay inay Israa'iil mar kale dib u bilowdo dagaalka Gaza iyadoo ku andacoonaysa Israa'iil inay Xamaas u hoggaansamin shuruudaha isla markaana ay diiday inay hubka dhigto sidaas darteedna waxay Israa'iil isku diyaarinaysaa inay dib u bilowdo dagaalka culus oo ka dhaca marinka Gaza ee dhulka Falastiiniyiinta. Warbixintu waxa ay sidoo kale lagu sheegay in waqtiga kama dambaysta ee duulaanka Gaza ay dib u bilaabanayso ama ay dib u bilaabi doonto Israa'iil inuu noqon karo bilowga bisha soo socota.